dunida qofba sibuu u arkaa laakiin runtii anigu Axmed ahaan waxaan aaminsanahay in dalxiisku yahay qayb ka mid ah nolosha lagama maarmaanka ah meelo badan oo dunideenna ah ayaan dalxiis ku maray diyaarado gaar ah baan karaystay iska daayay xitayaad oo ah doon wax waliba ku idil yihiin dalxiisna u raacay saacid waliba iskama raacbee kaliya waxa raaco nin ka tagay oo u dhigma kunnin oo xagga kharashka ah laakiin intii aan duni marayay ma arag meel ka qurux badan halkan Burj Al Arab baa la yiraahdaa waa hotel haddana jasiirad ah oo ku dhex yaalla badda in badan ayuu ahaa hotelka kaliya ee haysta 7 xidigood waa cabirka lagu cabiro hoteelada alaabaha yaalla halkan af Soomaali kuma sheegi karo ma ahaya sid aan yasayo afkeenna hooyo saaqaamuuskeena weli maba soo gelin waxa la ii sheegay inuu dhisay hotelkan sheekha taajirka isnacay ah waa ninka ah maamulaha Dubai magaciisana la yiraahdo Maxamed Ina Maktoum lacag dhan $1 bilyan ayuu ku khasaray dhismahan oo kaliya cajiib waxa loo sameeyay ma aha adiga saaxiib ee waxba ku mashquulin lacagtaas dadaan ogahay baa lagu soo jiidanayay bal eeg markii la dhisayay sidaas buu ahaa qaabka sharaaca doonta ayaa loo sameeyay hoos waxa ah shabab dhaadheer oo dhulka hoose loogu jiiday markii aan madaarka ka degayba taxi ma raacin runtii baabuurka qaaliga ah ee Rolls Royce ayaa ii diyaar ahaa shaqaale diran baa si diiran ii soo dhaweeyay inkasta oo la igu yiri helicopter raac haddana aniga ayaa iska diiday oo doonayay baabuurka soo soco isoo raac aniga halkan baa laga galaa Burj Al Arab waa duni sharaxan gidaaro loox ama laban ah baad arki jirtay kuwani waa dahab dhulka eeg bal eeg sida ay yihiin jannadii adduunka weeyi qolalka jiifka cuntada qaabka soo dhaweynta iyo meelaha kale ee hotelkan baad rabtaa soo maaha saaxiib waan daalanahay horta aan seexdo waa inoo iyo marka aan nasto marna waxaan hablaha qiroon wasal beena laba rugo waxaad dhageysanaysay waa khiyaaligaygi fadlan si aad ula socoto sheekooyin kuwan oo kala ah page-ka like saar oo follow dheh mahadsanid